السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا دي سلام يا ميلو البادون كجوكتين روتي ما انتو حانيدين وضا شيك آدي دو قرح بدن شيك دانا ويكدو بانتا شيكو ينكي هوري وقصة دابا اما باستوري دابا نقفل بناو كودي عكرا لغايبا داديو كلا دوبان با ان كود عضي قصدان ايضا runtii waxaa dhacday laba shakhsi ka soo jeeda South Korea in midba midka kale oo ku kalsoonaan jiray jacaylna uu ka dhaxeeyay wanaag isku barteen sharaf isku barteen balse natiijadu maxay noqotay intaba muuqaalkan bad kaga bogan doontaa fadlan dhamayso haddii aadan subscribe noo ahayn subscribe saaro kamilaalkana furo si aad ula socoto wax walbo oo aan soo dhigno oo maanta nagu soo bir si aad ula jaan qaado dunida horumarta daawadayaal labadan qofood oo aad aragtaan wiilkan iyo gabadhan runtii waxay ahaayeen laba qofood si dhaba isku jeclaa wayna isku kalsoonaayeen in badan waqti qurux badanna waa ay soo wada qaateen meel walbay isku raaci jireen goobaha lagu cabayo maqaayadaha dhihin hoteelada foo meel walba farxad ka heli karaan ama meel walba maxaa la dhihi jiray ayaga waqti ku qaadan karaan waqti unbay ku qaadan jireen runtii jacaylku waxaa maqli jiray waa jahwareer mararka qaar sababtoo ah qof jacayl uu halaylay xaafaduhu xawaalo moodaa unbay dhahdaa Soomaalidu marna haddii uu ku galo ma taqaanid misana sabab ama sifid oo kugu soo galay ma garan kartid runtii gabadhan aad arkaysaan wiilkan si xad dhaaf ah ayuu jeclayd waxaana soo wada socdeen 9 sano gabadhan wiilkan jacayl oo keliya laguma tilmaami karo waxay u qabteen nafteeda oo dhan ayay u hibaysay gabadhan waxay ka dhalatay cid qani ah wiilkana wuxuu ka dhashay reer iska sabool ah wiilkii gabadhii go'aan waxay ku wada gaareen inay isgursadaan balse gabadha reerkeedii ayagana go'aan waxay ku qaateen wiilkan faqriga gabadhooda inaysan marnaba u guurin marar badan wiilkii gabadhan abtigeedii oo guriga joogay unbaa wiilkan yidhi gabadha nolosheeda inaad ka fogaataa sababtoo ah adiga iyo ayada isuma qalantaan sababtoo ah xataa adiga wiil faqri ah ayadan waxay ka dhalatay reer boqortooyo marka wiilkii gabadhii sidaas ayay ahayd sheekadoodii gabadhii reerkooda waxay dhaheen gabadhan muxuu sheegnaa gabadhay wiilkan kuguma arki karno taatanba waxaan rabnaa noloshiisa inaad ka fogaato labadoodana balan waxay ku wada galeen inta ay nafsanayaan marnaba inaysan kala fogaan doonin caqabad walba soo wajahdana in si wada jir ay u xalinayaan wax kastoo dhacana inaysan kala fogaan doonin ballamkii iyo axdigii midkaas ayuu ahaa balse maxaa dhacay maxaase soo socdo dadkii ballamihii wada galay qowlkii wada xirtay runtii intaba waxay noqdeen halbacad lagu lisay sida sharciga uu yahana gabadha reerkeedu mar walba mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran ciddig waxay go'aan ku gaareen in gabadhii magaalada laga fogeeyo magaalo kale la geeyo gabadhii waa la soo waday